بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمنا والمسلمين آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahaygi marka la noo suurto galiyay annagoo khayraadka iyo wanaag isku sheegayno. waxaanu soo haynay mowduuceen ciwaankiisu ahaa fahamka diinta islaamka ayaanu ku dhex jirnay. waxaanu ku qaadanaynay axaadiistii rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. waxaanu maraynay xadiiskii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama uu yidhi: min xusni lislaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi. qofka islaamnimadiisa wanaaggiisa waxaa ku jira in uu ka tago waxyaalaha maa laa yacniga inuu ka tago. waxa waaye xadiiskaasi ayaanu ka soo hadlaynay. qofka islaamka ah islaamnimadiisana waxyaalaha ugu fiican inuu waxyaalaha maa laa yacniga uu ka tago ayaan soo sheegnay. maa laa yacniga wax lagu hadla ha ahaado, wax la sameeyo ha ahaado. qofka inuu ka gaabsado waxyaalaha maa laa yacniga ah xagga hadalka iyo xagga ficilkaba. maa laa yacniga waxaa laga wadaa qofka inuu waxawaaye an tatacallaqa cinaayatuhu bihi wa yakuunu min maqsadihi wa matluubih. oo qofka waxyaalaha cinaayada danta uu danaynayo oo uu qasadkiisa iyo wax uu raadinaya. cinaayada waxaa kaloo la yidhaahdaa qofka inuu ihtimaam daran inuu wuxuu siiyo. waxa waaye qofka markuu aada wuxuu ihtimaam u siiyo uu raadiyo ayaa la yidhahdaa cinaayo. ujeeddaduna meesha waxaa laga wadaa qofka inuu ka tago waxyaalaha maa laa yacniga, waxyaalaha laa cinaayata lahu, wax aan la ilaalinayn inuu iskaga tago. waxa waaye wax aan la rabin xukunkooda, hawada iyo nafta waxay raadinaysa ah in laga tago. bal waxa waaye bixukmi sharci walislaami, waxaaba lagu xukumaa sharciga iyo islaamka waxyaalahaas maa laa yacniga in laga tago. sidaas darteeda waxaa laga dhigay islaamnimada wanaaggeeda ayaa laga dhigay. qofka hadduu islaamkiisa hagaagsan yahay wuxuu ka tegayaa waxyaalaha maa laa yacniga, laa yacniihi fi lislaami, waxyaalaha islaamka aan danaynaynin wuu iskaga tegayaa. oo waxaasi waxay noqon karaan waxa waaye wax lagu hadlo, waxay noqon karaan wax la sameeyo. islaamka wuxuu keenayaa ficilka waajibaadka ah in la sameeyo waxyaalaha waajibaadka ah ayay keenaysaa, sida aan horeyba ugu soo sharaxnay xadiiskii jibriil, xadiiskii 2. waxaa kaloo la yidhahdaa islaamkeena dhammaystiran ina alislaam alkaamil almamduux yadkhulu fiihi tarku lmuxramaat. islaamka wanaagsani xusnu lislaami almar-i la leeyahay wuxuu soo galayaa waxyaalaha muxramaadka ah in laga tago. oo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey islaamnimo maxaa la yidhaahdaa, almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. muslim waxaa la yidhaahdaa qofka dadka kale muslimiinta ay ka badbaadeen carabkiisa iyo gacmihiisa ay ka badbaadeen.
islaamka wanaagsan wuxuu keenayaa in laga tago waxyaalaha maalaayacniga ah dhammaantooda oo wixii xaaraam ah in laga tago, waxyaalaha mushtabihaadka in laga tago, waxyaalaha kiraahooyinka in laga tago, hadalka macnaha tayaa waxyaalaha mubaaxaadka la yiraahdo waxyaalaha qofka u bannaan oo dheeraadka ah qofka inuu iskaga tago uusan u baahnayn. taasi dhammaanteeda waxa waaye laa yacni almuslimu idaa kamula islaamu. waxaasi xaaraam ha noqoto, shubha ha noqoto, kiraahiye ha noqoto, waxyaalaha dheeraadka ah waxyaalaha mubaaxaadka aan loo baahnayn, qofka muslimka ah marna oo iimaankiisa dhammaystirmay marna cinaayo ma siinaayo. wa balaga ilaa darajati alixsaan, gaaray darajada loo yaqaano darajatu lixsaan. darajatu lixsaanna waa soo marnay, waxay tahay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka. inaad ilaahay u caabuddo darajada wanaagga ixsaanka waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay caabuddo adigoo arkaayo oo kale. haddaadan adiga ilaahay u jeedin, ilaahay asaga ayaa ku arkaaya. waxaa la yidhahdaa cabdullaahi fa min cabdillaahi alistixdaar qurbatu wa mushaahadatu biqalbihi. waxa waaye fa min cindi illaahi, waxa waaye qofka inuu dhowaysto oo soo xaadirsado waxa waaye dhowaashadiisa qalbigiisana inuu ku fiiriyo, oo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dhowaysto qalbigiisii, oo inuu ilaahay daalacanayo. waxa waaye qofka istixdaar qurba inuu soo xaadirsado oo hortiisa soo dhigto dhowaasho wax la yidhaahdo, iyo wax la daawasho wax la yidhaahdo, oo qalbigiisa waxa waaye uu ku soo dhowaysanayo mise uu ku daalacanayo. muxuu soo dhowaysanayaa? ilaahay dhowaashadiisa. ilaahayba istixdaaru qurbillaahi minhu, iyo in ilaahay daalacanayo. faqad xasuna islaamuhu, islaamkiisa ayaa wanaagsanaaday. waxaana laasima qofka inuu ka tago marka hadduu islaamkiisa wanaagsanaado, waxaa laasim ah inuu ka tago waxyaalaha maalaayacniga islaamka u yaqaano, oo uu ku mashquulo waxyaalaha waxawaaye oo la danaynayo. marka taasi waxaa ka dhalanaya labadaasi maqaam, labadaasi boos qofka markuu taagan yahay, yatawalladu min haadayni almaqaamayni alistixyaau min allaahi. markuu labadaas maqaam uu taagan